xilli 6 sano ay ka soo wareegtay markii dalka South Africa ay ka dhaceen rabshadihii jinsi naceebka ah ee lagu dilay ilaa 60 ruux halka in ka badan 10,000 oo dadka ajaanibta ay ka barakaceen bartamihii sanadii 2008 ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay soo baxayay in rabshado la mid ah kuwaasi ay ka dhacayeen duleedka magaalada Pretoria ee caasimadda dalka South Africa. hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa ku eedeysay dowladda South Africa iyo ciidamadeeda booliiska inay ka gaabiyeen difaacidda dadka ajaanibta ee ku nool dalkeeda gaar ahaan muwaadiniinta Soomaalida ah. agaasimaha hay-addan ee wadamada Koonfurta Afrika ninka lagu magacaabo Debrose Mojena ayaa sheegay in rabshadihii toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacayay deegaanka Mumuleedi ee duleedka magaalada Pretoria ay ku dhinteen 2 ruux in ka badan 70 dukaan oo ay lahaayeen muwaadiniin Soomaaliyaana lagu boobay iyadoo ciidamada booliiska iyo dowladda South Africana ay ku fashilmeen inay xakameeyaan rabshadahaasi sida uu sheegay. falalka lagu waxyeeleynayo muwaadiniinta Soomaalida ah ee u badan dilalka iyo rabshadaha jinsi naceebka ayaa noqday kuwo ku soo laablaabtay gudaha dalka South Africa waxaana muwaadiniinta Soomaalida ay aaminsan yihiin in dowladda South Africa iyo ciidamadeedu ay ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan arrimahaasi sida uu sheegayo gudoomiyaha jaaliyadda Safe Somali Community Yusuf Umar Ahmed. xaqiiqatan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dambiyada lagu Soomaaliya maalin kasta ku dhacayo oo caalamka gaaray Soomaalida dibka lagu hayo ay dowladdu ay ka gaabisay waxyaabaha hadda aan soo qaadan karno waxaa kamid ah in waqtiyadii u dambeeyay la helayay hubka ciidamada gaarka ah ee dowladda South Africa ay leeyihiin in dadka dambiilayaasha ay adeegsadaan. marka waxaan soo dhaweynaynaa baaqaas waxaan rajaynaynaa in wax badan ay qabsoomi doonaan maxaa yeelay waqtiyadii hore sanadadii hore aan dhihi karno 2010 iyo 2011 meelahaas iyo hadda 2014 farqi weyn ayaa u dhexeeya. arrinkan ayaa ku soo aadaya xilli bilowgii sanadkan uu soo saaray macadka diraasaadka cilmi baarista South Africa lagu sheegay inay sii kordhayaan falalka jinsi naceebka ee lagula kaco muwaadiniinta ama dadka ajaanibta ee ku nool dalkani Koonfur Afrika. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.